siyaasiyiinta kale ah Maxamuud Xaashi Cabdi, Maxamed Aadan Ibraahim Qabo iyo Maxamed Iid Dhimbil oo ka tirsan xisbiga talada dalka iyo kulmiye oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa eedo u jeediyay xukuumadda hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi waxaana uu sheegay in xukuumadda hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aynay fulin ballanqaadyadii ay sameysay ay shacbiga reer Soomaaliland. dakhliga dalka dhaqaalaha dalku wuxuu ka yimaadaa 4 meelood xawaaladaha dibadda oo dadka xoogsatada soo diraan dakhliga dawladda xoolaha nool iyo deeqaha caalamiga afarta dakhli bayna soo gala marka dawladdu waa contributor weyn oo waxay ka mid tahay dakhliyadeedu waxyaalaha qaranka saameeya ee marna la sii daayo marna la yareeyo siyaasadaha lagu maamulaa waxa kordhay ilaahay mahadii wax abaarina inay helin muddadii 3 sano barwaaqaynu ku jirin waxa huwaala haddaba in baahidii iyo busaaradii sii kordhay waxa huwaala in ganacsiyadii yaryar oo dhami kaceen in badan waxa beenoobay ballanqaadkii xisbiga kulmiye aynu ummadda u ballan qaadnay ee ahaa inaynu si mugle heerka saboolnimada hoos ugu dhigno mustaqbalka dhow waxa beenoobay ballanqaadkii ahaa waxa uu kulmiye kor u qaadi doonaa dakhliga danyarta isagoo oo fursad siin doona inay yeeshaan awood dhaqaale oo ay ku samaysan karaan ganacsiyo yaryar iyo kuwa heerkoodu dhexdhexaadka yihiin waxa maanta bulshada Soomaaliland ka markacaysa in saboolnimadii sii korodhay baahidii busaaradina sii badatay taa waxaan uga socdaa dakhligaasi bulshadeena waa isweydiinaysaa lacagta baanna wax inooma yaalaan oo tan leeyahay doorashadiiba wax lagu qabto lama hayo wax muuqda oo mashaariicdii budhiga ummadda u ahaana aynu fulinayna ma jiro madaxweynuhu isagoo shirkii xisbiga ka hadlay wuxuu intaa soo boqolo mashruuc baan fulin mashaariicdaasi bulshada Soomaaliland aragtideeda ma hatayde ma arkaan wax weyn oo la qabtay yididiilay iyo yuhun wax qabad may arag aan isdul taagaba wax qabadku mashaariicda horumarintu waa asal iyo farac mashaariicdii horumarineed ee budhiga u ahaa ummadda waxaynu u ballan qaaday lama fulin waxa kamida koow kaabayaasha dhaqaale jidadka kamida waxa aynu ballan qaadnay inaynu xoog saari doono dhamaystirka 6 wado oo socday xukuumaddii hore ee kulmiye ay ka tagtay waa wadada Ceergaabo Burco waa socotaa taa waxba laga wadaa dafiri maayo wadada dhamaystirka wadada Balligubad la Hargeysa wadada Burco ood weyne wadada Salaxley Hargeysa wadada Dawgacad wadada allay baday Arabsiyo shanta wado wax ka dhaqaaqay ma jiro gacan dawladdu ka geysatay maanta ma jirto dhinaca kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay siyaasi Maxamed Aadan Ibraahim Qabo waxaana uu sheegay in siyaasiyiinta isku deegaanka ay ka soo jeedaan gabi ahaanba laga saaray xisbiga talada dalka iyo kulmiye shaarkii kulmiye ee quruxda badnaa ee madaxweyne Siiraanya uu ku wareejiyay Muuse Biixi waxaan ka sheegayaa inuu maqluubka u xidhay madaxweyne Muuse xataa tolmihii uu ka bedelay qaab jeebadii halkan ku taalay inuu bartan ku dhigay maantana aad arkaysaan halka uu xisbiga marayo in la yiraahdo xeerkiiba wax laga bedelayaa hoggaankiiba wax laga bedelayaa xogayiba nominated cid la tartami mayso ciidan anigu farta ku fiiqunba xataa madaxweyne ku xigeenkii laga saaro hoggaankii xisbiga oo elected oo madaxweynaadkiisa leh dadku way yaabayn qof ku amaanaya ama wax wanaagsan ka sheegaya waa yari imaka 2 safar buu ku tagay saca badan waa la garaacaa waa naqaan qaabka loo garaaco boorabana wuu tagay war wanaagsan kala mu iman gabiilayna shalay 15 minute wax ka yar buu la fadhiyo odayaasha waxa weeyaan tayada un baa la yeelaya tu kale ma jirto dhinaca kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay Maxamed Iid Dhimbil waxaana yiri sanad bayna u qaadatay inaan walaalkay Muuse ka maslaxno in uu noqdo mara taariikhda meela maqale in uu noqdo madaxweyne ku xigeen halka uu ka noqonayo madaxweyne Siiraanya
waxaan doonayaa buu inaan noqdo madaxweyne ku xigeen waxaan doonayaa inaan noqdo madaxweyne ku xigeen war aqliga ma gasho in uu siiraayana madaxweynenimo isku sharaxo adna aad ku sharaxdo madaxweyne ku xigeen nagada waxaan noo ahaa saldhig ambassador aqal ka dambeeya raggii goobjooga ahaa maanta way wada joogaan waxaan ka maslaxnay oo in fara badan dhabarka iskaga jabinay arrinka noocaasihi sideebay u suurtagal noqon kartaa in beesha dhexe ay isku hesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen si kastaba ha ahaatee saddexdan mas-uul ayaa iyagu ka soo qayb qaatay sidii xisbiga talada dalka iyo kulmiye uu talada dalka u qaban lahaa.